waan idin salaamay dhammaantiin dhalinyaro iyo waayeel badan ma joogaan u malayn aniga un baa joogaan u malayn marka aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa raggii halkan iga horeeyey oo ammaanta isdaba joogga ah oo aanan badankeed mudnayn halkan ka soo jeediyey waxaan u qaadanayaa kasii badi in la leeyahay tabarina iguma harin xaalkayga uma fiicna waxaa weeye waajib soomaali oo dhan saaran laakiin waa fardu kifaaya waxa la yidhaahdo oo kale oo dee dadka oo dhan ma wada qaban karaa hawshaa ama wakti uma hayaan ama umaba dhalanba oo ma jecla qofku wuxuu wax qaban karaa oo ku dhiiran karaa wax ka soo saari karaa waxa uu jecel yahay markaa aad iyo aad baan raggaa mar kale ugu mahadnaqaya waxaana leeyahay fariintii waan helay wixii aan qaban karo oo dambe oo waa qaban doonaa haddii alla idmo aad iyo aad baan waxaan ugu farxay caawa aftahamada halkan ka muuqata oo aanan meel kale ku arag runtii waxaan ka qayb galay shirar badan baan ka qayb galaa waa tagaa waddanka intiisa badan marna idaacadahan dhegaystaa tvyadan dhegaystaa waxaan dhegaystaa wareysyo dad laga qaadayo waxaan dhegaystaa haddii alla kuu ron yahay dadaan isdhaamin oo iswareysanaya weliyihii iyo qof marka intaas oo idin waxaa weeye weli ma arag runtii waayahan ima soo marin aftaamada goobtaan aan ka dhegaystay caaw ima soo marin hadday tahay maxamed bedel iyo hadday tahay shaacir iyo hadday tahay haddii alla kuu cabdiwaaxid iyo hadday tahay sheekha iyo cid walba macnaha af soomaaligii aan anigu markaan barbaaray oo soo kacayay lagu hadli jiray baa looga hadlay halkan caaw taa haddaan ka gudbo waxaan u imaanayaa aniga iyo magaaladan hargeysa la yidhaahdo magaaladan hargeysa la yidhaahdo markii aan imid oo ugu horeysay cilmi baaris baan u imid ina yar baan ahaa da-dayda waxba hadda sheegi maayo waxaad rabtaan isku geegeysaan inaad soo saarta waxay ahayd 1972 intiinaan badankii ma idnaa dhalan waxaan u imid meel aan ka bilaaba maan aqoon inta lacag la soo siiyo xoogaa wasaaradda waxbarashadu ayaa waxaa la yidhi hargeysa tagoo af soomaaliya markii lagu dhawaaqay weeye waxaad ka soo qabataa 2 nin qowdhan ducaale iyo faarax nuur hadda waa kii idin sheegay qowdhan ducaale iyo faarax nuur qole ay yihiin ma aqaan anugu mana danayn jirin waagaas dadku inay niman gabyaa ahaayeen waxoodii la qorayo oo la keenayo ayaa la igu soo diray hargeysa markaan imid si aan ku ogaaday ba adigu waan ogaaday inay isaaq yihiin laakiin dan laga lahaa oo kale xataa buugga ku qori maysid qowdhan oo isaaqa ma oranaysid ama qowdhan oo ciidagalaa lama ogolayn waxaan la ii tilmaamay oday la yidhi ninkaasaa ciidagale aad u yaqaan arrimihiisa oo qowdhan ducaale waa cabdiwaraabahan hadda yaalla oo xoog ah markaas cabdiwaraabe wuxuu ii keenay maxamed cabdi la ohan jiro oo biyiga ka keenay isagaa iyo haddii alla kuu rogaya nin la ohan jiray nuur maxamed laangare la ohan jiray isna maxaa iga gidhiisha gabayga ahaan geeraarkii ahaa ninka laawey beerta xorriyadda hotel yaroo ku yaalo 26 juun la yidhaahdo ayaan degey weli markaa ma gaarin oriental baan usoo wareegi doonaa lacagtu iguma filayn aan ku dego oriental bil baana haystaa wakti labadii nin markaan dhameeyaan cabdiwaraabo ku soo noqo markaasaan waahay labadii nin waa ka dhamaystay gabayadii waa ka duubay faarax nuur baa ii hadhay suyena kaci maxaa la yidhaahdo har wanaago hilib waa weyn laga cunaayo iyo baruur buu intay dhex geeyey wuxuu yidhi waryaar arabow war ninkaani wuxuu doonayay qowdhan ducaale iyo faarax nuur annagu qowdhan waa u sheegnay waxay sayda u sheegay
marka anigu waa yaryaraado yani aad baa lagu xiraa baan leeyahay mogtahay laakiin isagu dan kama lahayn lamana xidhin horta Hargeysa markaas ay ugu horeysay markii dambe oo aan midna markii waxay igu horeysay markii lagu dhawaaqay af Soomaaliga oo la yiri intaan reer baadiyaha la qaban oo la aadin horta reer magaalka hal la baro afka farta sida loo qoro afka cidna cid bari meeyne waa afku waa marka waa ladnaa oo ma ahayn sida maanta yaamo ahayn marka waxa muhiim ahayd waxay weeye in farta la baro dadka marka kormeer baan aniga nin kale oo madax ii ahaayo Axmed Ashkir Bootaan la oran jiray naloo soo diray oo inaan markaasaan ku wadin ilaa Berbera Boorama iyo dhulkan baan naloo soo diray Calayax markaasna waa imid buugayga aan ugu jeclahay oo aan haddii aan ku roonahay oo ku saabsan Ismaaciil Mire oo aan ka qoray 74 meesha aan ku dhameeyay waa Hargeysa iyaduna horta taa qabsado orientalka ay ahayd meeshaan ku saxiix inta markaan ka soo baxo marka waxaan leeyahay maanta af Soomaaligii meelaha uu ku haray ayaa waqooyi ka mid yahay dhulkaan aan joogno ayuu ka mid yahay waxaa la doonayaa marka in loo guntado gobollada kale oo aan arkay wax aan ku arkay baan ku arkay laakiin oo aan ka filayn waxaan waayay hal meherad oo af Soomaali ku dhigan waa wada Ingiriis sidee baad carruurtiina uga dhaadhicinaysaan inay afkooda ku faanaan oo jeclaystaan haddaydnaan ku barbaarin markay yar yihiin annaga waxaan nala baray waagaan yaryarayn in af Soomaaligu ka fiican yahay afaf kale oo dhan inuu ka baraaqisan yahay carabiga iska dhaaf aduu afafkaa kale dee waa qab laakiin cidna waxay buruuf garaysay ma aha laakiin qab bay ahayd ilaa nin raggii af Soomaaliga aad ugu dheganaa nin ka mid ah oo waagi dambe madax noqday markii horena SYL ahaa waxaa la odhan jiray Cabdilcasiis inuu xirsi wuxuu yidhi magacayga saddexdu waa carabi weeye saddexdaba Soomaali baan ka dhigayaa buuri oo maxaad odhanaysaa Cabdilcasiis waxaan odhanayaa bidawaaq ilaahay bidihii ilaahay weeye bidawaaq waaq oo ilaahay Soomaalidu lahayd intaysan muslimka noqon marka bidawaaq iyo Cabdilcasiis waa isku mid nuur wuxuu yidhi xirsi nuur wuxuu yidhi ifiye bidawaaq ifiye xirsina wuxuu yidhi qardhaas markaa uu yidhi bidawaaq ifiye qardhaas baa magacayga la yidhaahdaa maanta kadib waxay muujinaysaa yani sida loogu dheganaa afka maanta waxaa moodaa in laga faanayo Soomaalida waxaa isku xirayaa oo dee hadda yani weli ay isku haysataa waxa weeye waa suugaanta ay wada jeceshahay oo dhaxalka ah iyo af Soomaaliga waa kii hadda sheegayay Maxamed Bedel oo lahaa raxweyntii baa la yidhi afkiinu waa gaar waxay cidda tirina waa naqaanaa oo hadda cid Soomaali dan kale ma aha waxaas adduunka waxaa dhibay iyo Afrika Soomaali waa isku diin oo waa isku af oo waa isku dhaqan oo waa isku hiddo oo waxaasaa dhibay Afrikana lagama helo dad saas kama jiraan Kenya waxaa jooga 42 qabiil mid baa Soomaali ah 42kaas Soomaalidu waa hal qabiil Kenya ma aha qabaa'il kale ma aha waxay nooga fiican yihiin laakiin hal qabiil markay yihiin 42kaas hoos uma sarrifmaan oo Kikuyu waa Kikuyu wax cid kale ma noqoto waa isugu mid innagu haddaan saa ahaan lahayn baan ficnaan lahayn baan isiraahdaa mararka qaarkood waaba la heshiin lahay oo dadkan wada dagaalamayo oo markii mid jaga loo dhiibo lahaado kaas ahaa waa reer hebel baa la siiyey hadduu reer hebel yahay dee reer hebelka hoose ma aha marka dhibaatada halkaa ka jirtaana waa qabyaalada weeye oo dhibaataa naga haysata anigana waa isoo gaadhaa maalin kasta sidii raggana sheegayo dadkii qabiil baa lagu anqariyey weli waagi hore waxaan oran jiray dadka waayeelkaaba qabiilka ayaa ku faran ilaahay amarkii dhalinyarada baa ka dartay hadda maxaa waxay indha dilacsadeen iyada oo lagu faanayo oo la barayo oo cadaawad loo abuurayo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel markaasaa waxaa lagu leeyahay ninkii la oran jiray idaajaa markuu idaacadaha tago waxaasoo wuxuu sheegaa reer hebel ma sheego waana beentii ma dhegaysto dadkuu ka maqlay waaba waxaa la yidhi qolo anigu aan ahay baa la yidhi reer siyaad baa la yidhahdaa markaasaa la yidhi
mid baa yidhi reersiyaad idinka iyo waalidkiina alla cadaab reersiyaad reer mudug buu ahaay markaasaa maxaa ka rabtaa sidii dadkaan ahaa mid baa wuxuu maqlayaa marka wuxuu maqlayaa iyadoo laleeyahay saasaa idaajaa sameeyo saas reer hebel ma sheego isagoon weligii dhegaysan oo waxba iga ogeyn oo dhegaysan buu leeyahay haddii alla ku saas leeyahay anna markaasaan u sheegaa waxaan hebel soo adiga ma aha hebel soo adiga ma waagii dambe waa iska daayey waxaan ku soo koobay af soomaaligu suugaanta soomaalida oo aan sheegay anugu 4.5 uma qaybiyo sida siyaasadda oo markaan hebel sheego kuma khasbani hebel kale oo ka soo horjeeda ama ay col yihiin inaan sheego kuma khasbani maxaa yeelay suugaanta soomaaliduna horta wax qof keliya lagu hadlayana waa ka weynta waana ka badanta inkastoo hadda ay gabaabsi yihiinba dadki wax la weydiin lahaaba taasna halkaasaan ku xirayaa waxaan idinku gawaabinayaa dhallinyaradiinaas afkiina inaad u kacdaan runtii suugaantiisa aad u kacdaan suugaanta aynan kala soocino hebel reer hebel buu ahaa qarnigii 19aad dhintay reer hebel waxba kama oga maanta waxa weeye murtidiisa adaa ku raaxaysanaya adaa wax ku qaadanaya waa xikmad waa inaad u soo dhawaysaa ama dhegaysataa sidii isaga oo yani aad isku qoran tihiin haddaan irahdo waa inaad sida u fiirisaa arrintan markaa wax iyadana ha rumaysanin oo wax ka jira lama arko cid aan u eexdo iyo cid aan ka eexdo wax dan iigu jir wax iyo dan iigu jirta midna ma jirto markii horeba qabiilku aniga macno iguma fadhiyo haddaad runta rabtaan marka soomaalidana ilaahay wuxuu ku ibtileeyey ninkii la odhan jiray guhaad cabdigahir oo aan saaxiib ahayno ii imaan jiray xamar gurigeyga oo yaa maalinka dambe u yimid oo markaasaan waxaan idhi maalinka dambe u yimid oo markaasaan waxaan idhi magaalada maxaa la lahaa waa xamar weeye markaas maxaa la sheegan idhi xamar war anugu ma dhegaysto marka soomaalida ana maxaa waa hore aan iska daayey buu oo maxaa iskaga daysa waxaan idhi buu yidhi war uu sido waxaasaa la yidhi weligay soomaali weydiisan maayey hadduu igula soo weecdo weeye iyo haddaan kow iraa waan ka waan lahay maxaa wacay waxaan been ahayn yaanu ii wadinba baan idhi buu yidhi ma dhegaystuu yidhi mar kale waxaan u mahadnaqayaa xafladdan raggii soo qabanqaabiye dhallinyaradii oo maxamed bedel haddii aan la ku wariyay oo shala keliya aan is aragnay inuu intaan abaabulo ay wax weyn tahay runtii waan ka mahadnaqayaa si isku duuba anigoo hadda lafa iyo u qaybinayn waxaa la yidhi cabdigahir baa buuhood la tego markaasay xoolo iyo waxun bay siiyeenoo aad bay usoo dhaweeyeen baa la yidhi markaasuu inta ka yaabay wuxuu yidhi maasha iri alla maxaan hagaagsanaa markaan lahaa maxamuud garaad oo fardaha madal ka jeedaya lagumood maqaamihiisu raa madaxa shaalkii inantiina maanaga maxamuud garaad na leedahay waa niman faarax garaad iyo axmed garaad marka waxba kala sooci maayo aniguna aad iyo aad yaa u mahadsantihi